maalin ayuu qoray ama yiri Axmed Khalid Tawfiiq Allah u naxariistay cibaaradiisa caanka ahayd la akhaafu al-maut akhaafu an amuuta qabla an ahya kama cabsanayo geerida ha yeeshee waxaan ka baqay inaan dhinto ka hor inta aanan noolaan. Assalaamu calaykum, anigu waa Balwa Suge, kusoo dhawaada hal daqiiqo iyo horaarsan. waxaa la wariyaa inuu jiray nin la oran jiray Shafiiq Jabri kaasoo ahaa mid ku maman safarka iyo dalxiiska. waxa uu booqday maalin maalmaha kamida magaalo cajiib lahayd. waxa uuna tagay qabuuraha magaalada sida caadadiisa ahaydba si uu uga soo helo cibri qaadasho. ha yeeshee intii uu dul meereysanayay qabuuraha ayaa waxay indhihiisu qabteen qabri ay ku dul qoran tahay taariikh ah fulaan waxa uu dhashay 1819 waxa uuna geeriyooday 1881. ha yeeshee wuxuu dhintay isagoo cimri ahaan jira 2 bilood. Shafiiq waxa cajiib gelisay cibaaradan iskhilaafsan ama taariikhdan qaldan ay ku qoran qabriga. ha yeeshee wuxuu maleeyay markii hore inay tahay qalad ka yimid dadkii ku qoray taariikhda qabriga. markuu indoora dhex socday qabuuraha ayuu mar kale arkay dhowr qabri oo ay ku qoran tahay taariikh caqli ahaan iskhilaafsan oo aan sax ahayn. kadibna waxa uu la tiigsaday waardiyihii qabuuraha si uu u weydiiyo sababta ka dambaysa in qabriyada badankood lagu qoro taariikh aan sax ahayn. waardiyihii waxa uu ku jawaabay, Shafiiqow, inaga dadkeenan ku nool magaaladan uma xisaabina insaanka intuu u noolaa calooshiisa iyo danihiisa gaarka ah. ha yeeshee insaanka naga midihi waxaan u xisaabinaa inta uu la yimid waxqabad anfaca aadanaha iyo intuu anfacay bulshadiisa si gaara. Shafiiq oo la yaabay jawaabta waardiyaha ayaa in doora fakiray kadibna waxa uu ku yiri, aniga haddii aan ku geeriyoodo magaaladiina waxaad ku qortaan qabrigeyga Shafiiq min badni ummihi ila al-maqbara. Shafiiq sidoo uga soo baxay caloosha hooyadii waxa uu hoyday qabrigiisa. ma jiraan wax aan qabtay oo la xisaabiyo. ugu dambeyn saaxiib, adiga imse jir baa tahay, maxayse ku xisaabin bulshadaada haddaad halkan ka huleesho.